madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay wareegta ka soo baxday xafiiskiisa ayaa shaqada loogu joojiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. waa kan Cabdinaasir Al-Cadaala. madaxweynaha madaxweynaha soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa shaqo joojin ku sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. wareegta uu soo saaray Farmaajo saqdhe waxa uu shaqo joojin ku sameeyay Roble waxaana uu ku eedeeyay in uu soo galay raada musuqmaasuq sidoo kale qodobada ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka. Farmaajo ayaa sidoo kale ra'iisul wasaaraha ka hakiyay awoodaha uu leeyahay inta ay socoto baarista ay wadaan guddi loo xil saaray kiiska ugu eedeeyay waa in uu soo galay tuhun la xiriira ku-tagrifalka ciidanka badda. xubnaha kale ee golaha xukuumadda Soomaaliya xilgaarsiinta iyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo faray in ay sii wataan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan shuruudaha iyo sidoo kale xeerarka dalka. qoraalka wareegtada ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waxaa sidoo kale loo cuskaday xilka Roble qodobo dastuuri ah oo uu cuskaday madaxweyne Farmaajo. waxaana sidoo kale qoraalka ka soo baxay filla Soomaaliya lagu eedeeyay ra'iisul wasaare Roble saddex qodob kuwaasi oo kale ah saddex qodob ayaa lagu soo koobay qoraalka ka soo baxay filla Soomaaliya kuwaasi oo ah in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu galay raad musuqmaasuq iyo sidoo kale tagrifal arrin dad hanti guud ah oo haatan ku socda baaritaan. inta laga gaarayo tuhunkaasna waxaa lagu sheegay qoraalka ka soo baxay filla Soomaaliya in shaqo joojin lagu sameeyay wasiirka koowaad ee dalka ra'iisul wasaare Roble. sidoo kale qodobka labaad ayaa ah xubnaha kale ee golaha xukuumadda waxa ay sii wadan doonaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan shuruudaha iyo sidoo kale xeerarka dalka. qodobka kale ee ku aadan arrinta Roble ee ka soo baxday filla Soomaaliya ayaa ah waxaa lagu adkeynayaa dhammaan mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda in ay ka fogaadaan ku-tagrifalka hantida danta guud ayna dhowraan shuruudaha iyo sidoo kale xeerarka dalka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay filla Soomaaliya. weli waxaan ku jirnaa wararka filla Soomaaliya. wareegta ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa shaqo joojin loogu sameeyay taliyihii hore waa ciidamada badda Soomaaliya kadib markii uu ra'iisul wasaaraha ku eedeeyay inuu boob ku hayo dhul ay leeyihiin ciidanka badda Soomaaliya. qoraal ka soo baxay filla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Farmaajo uu shaqo joojin ku sameeyay taliyaha ciidanka badda Sareeye Guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir. waxaana sidoo kale lagu sameyn doonaa baaritaan xaqiiqo ahaanshiyaha eedeynta uu jeediyay waa sida hadalka loo dhigay. sidoo kale Farmaajo ayaa amray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Guuto Odawaa Yuusuf Raage in uu shaqada ka joojiyo taliyaha. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Guuto Odawaa Yuusuf Raage in uu shaqada ka joojiyo taliyaha ciidanka badda Sareeye Guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir si waafaqsan anshaxa iyo xeerka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya ayaa tilmaamay muhiimadda ay tallaabadani u leedahay dhammaystirka galbaaritaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku aadan tuhunka ku-tagrifal dhul dan guud oo ay leeyihiin ciidanka badda. madaxweynaha Soomaaliya ayaa faray dhammaan ciidamada qalabka sida in ay si waafaqsan sharciga iyo xeerka ciidamada uga eedeeyaan dhulka danta guud ee ciidanka iyo hantida ay wakiilka ugu yihiin shacabka Soomaaliyeed taas oo aasaas u ah howlgudashadooda.